waxaan halkan maanta baaq uga dirayaa kuwa xamar ka soo hanjaba ee leh waa gobol ka mida Somaliland iyo kuwa biidhiqaatayaasha ah ee intay shaqo tageen ummad aan dooranin ummad tashatay ummad gooniisu taagtay oo la soo noqotay xorriyaddoodii leh annagaa matala intay guri hoosta ka soo xidheen oo sanaaduuq beenbeena aanay ummaddan iyo dadkan ku matelin ay dhigteen waxa idin sugayaa cadowgeenni muu dhiman waa nool yahay waa ogtiin dalkan iyo ummaddan waxaa dhibaato loo soo maray sidii awalba xilku idinka saarnaa ayaa cadowgeenni weliina hunguraynaya hubkaannu maanta haysanno waxaannu ugu joognaa oo ugu diyaarnahay in lagu difaaco dalka cadowgii dalkani lahaa waa kaynu dad isugu xignay waa kuwii dhaqdhaqaaqin odhan jiray waa kuwii waxaa ogeydeen dalkan baday waa kuwaynu ka go'nay maantana way inoo soo hanjabayaan weliba waxa ka sii daran been abuurka ay ummadda ka been abuurayaanay leeyihiin waxaannu matallaa jamhuuriyadda Somaliland ama gobolladii waqooyi la odhan jiray ayaannu matallaa waxaan leenahay waa xumaan kale oo dad tashaday oo ummad tashatay oo dalkoodii sugtay waxaannu idinka sugnaawn waa ina xabad noola timaadaan taana waan iska kiin celinaynaa waxba kale noolamaydaan hadhin uma qaadanayno kaftan iyo siyaasad uma qaadanayno hadallada dhiifta leh ee wax badanna xusuusinaya ee ka soo yeedhaya tiifiyada iyo dadka ka soo jeeda wallaweyn waxaannu leenahay laba daloo jaara baynu nahay jaarnimadiinna ku egaada qaran isbixiyey baannu nahay dubna looga noqon maayo 100 sannadood hadday nagu qaadanayso waxaa noo diyaara ciidanka qaranka oon hadh iyo habeen seexan ayaa noo diyaara